waxaana wanaagsan daawadayaal idilkiinba meel walba oo dunida ka joogtaan iyo si walba muuqaya maqalkaygu idiin soo gaarayo ku soo dhawaada barnaamijkii dhalinyarada ee baraarug toddobaad walbaadahan oo kale aad ka daawataan telefishinka caalamiga ah ee Somali Cable toddobaadkan hadduu raalli ka noqdo barnaamijka dhalinyarada ee baraarug waxaanu kaga hadli doonaa caabuqa dunida walwalka ba'an ku haya ee COVID-19 waxaana stuudiyaha xarunta dhexe ee telefishinka Somali Cable igula sugan Dr. Cabdullaahi Daahir Duqow oo kamid ah dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan bahda wax ka baratay caafimaadka. Cabdullaahi waxa uu kamid yahay dadka sida gaarka ah u bartay sayniska. waxa sidoo kale isaguna aan stuudiyaha xarunta dhexe igula sugan Dr. Xasan Maxamed Eenow oo isaguna kamid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho waxna ka bartay cilmiga sayniska. labadooda stuudiyaha ay igula sugan yihiin waxaanu ka hadli doonaa mowduuca aan idin sheegay ee la xiriira caabuqa COVID-19 ee dunida gacanta ba'an ku haya iyo doorka dhalinyarada Soomaaliyeed waxa kaga aadan. marka hore Cabdullaahi ku soo dhaw telefishinka Somali Cable gaar ahaan barnaamijka baraarug. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa TV-ga Somali Cable fursadan qaaliga ah oo na siiyay. runtii markaan ka hadlayno kaalinta dhalinyarada ee ku aadan cudurkan coronavirus waa kaalin aad iyo aad muhiim u ah. dhalinyarada Soomaaliyeed waxa ay qayb ama kaalin weyn ka yihiin bulshada Soomaaliyeed. waxa ayna ka yihiin boqolkiiba 70 populationka guud ee Soomaalida. marka meeshaasi waxa yaala kaalin weyn oo ay leeyihiin dhalinyarada Soomaaliyeed. gudahana waa u gali doonaa. ku soo dhawow Dr. Xasan adiguna. waa dhawahay. waxa aad ugu faraxsanahay maadaama barnaamijkan fursad ay inoo siiyeen aan ku muujino kaalinta dhalinyarada ay kaga aadan. waana kaga mahadcelinayaa telefishinka Somali Cable TV. aad baad u mahadsan tahay. Cabdullaahi adiga ayaan ku imaaday doctor. waxa ka mid tahay dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan labadiinuba waxaad ka mid tihiin dad ka wada tirsan ururka saynisyahanada Soomaaliyeed. caabuqan COVID-19 dunida qalqal weyn buu geliyay. waad ogtahay Soomaaliya laftirkeedu in dawladda Soomaaliya ay sheegtay dhowr kiis in la helay. marka dunida dhaqaale ahaan isku socod mid waxbarasho iyo si guudba waa u saameeyay. Soomaaliya marka la yimaado maxay kula tahay doorka dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan bahda dhaqaatiirta waliba da'da yar oo adinku ka mid tihiin. runtii saa hore u sheegnay dhalinyarada Soomaaliyeed waxa ay qayb weyn ka yihiin bulshada Soomaaliyeed oo boqolkiiba 70 ay ka yihiin. sidaas daraadeed waxaa saaran door aad iyo aad u weyn. marka koowaad waxaa saaran dhalinyarada Soomaaliyeed in ay nafsadooda ay ka bilaabaan oo qofka marka asaga cudurkan uu ogaado khatarta uu leeyahay nafsadiisana uu protect u sameeyo. markaas waxa uu ka qayb qaadan karaa qaybta labaad oo ah inuu bulshada kale badbaadiyo. bulshada kale waxa ay ku badbaadin karaan in ay ka qayb qaataan wacyigelinta. waxaa jira dad badan oo Soomaaliyeed oo cudurkan aan fahansaneyn khatarta uu leeyahay. runtii waa cudur halis ah. waxa ay sameynayaan xaafadahooda kale ay waxay ka bilaabayaan wacyigelin. dan waxa ay sameynayaan in maaragtay ay dadka aan haysanin oo kale balaan afka lagu xirto inay maaragtay gaarsiiyaan. waxaa jira dad barakacyaal ah oo degan goobo maaragtay aan adeeg badan lahayn in maaragtay dawladda haddii soo rogto kale xayiraad ama in bandow kale la soo rogo. waxaa dhici doon dad badan oo Soomaaliyeed oo qutulyoonkooda alyoomkooda dhacsan jiray. dadkaas waxa ay weyn doonaan waxay cunaan. dhalinyarada marka waxaa saaran door muhiim ah kaalintaas oo kale inay sameeyaan barnaamij iska maaragtay wax u qabsa ah oo xilqaan ah inay cunooyin diyaariyaan ay gaarsiiyaan dadkaas maaragtay maaragtay awoodin danyarta aan awoodin. waa tahay aad baad u mahadsan tahay. Dr. Xasan waad maqlaysaa saaxiibka Cabdullaahi. dhalinyarada Soomaaliyeed yani doorka kaga aadan cudurkan coronavirus fikir ahaan waxaa isleeyahay horta dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho waxaa la rabaa inay bilaabaan wacyigelin ku aadan goobaha ay dadku isugu yimaadaan maadaama iyaga ay yihiin dadka meesha imaanayo. dhalinyarada inay bilaabaan inay raacaan warka ay soo tabinayaan wasaaradda caafimaadka Soomaaliyeed. wasaaradda mar walba waxay ku celcelisaa waxay dhahdaa war meelaha la soo imaanay halaga istaago halaga joogsado
dhalinyaradii Soomaaliyeed waxa u maleynaysaa inay leeyihiin badankooda yani cudurkan Soomaali ma soo gaar ama ma ku dhicin wasaaradina mar walba waxay ku celcelisaa in oo dhalinyarada ay tiraahdo war u istaaga marka dhalinyarada waxa ka codsanaynaa inay u istaagaan ay bilaabaan cudurkan inay si guud iskala hortagaan dhinac walba ay joogaan waxaan u mahad celinayaa dhalinyaro ka istaagtay magaalooyinka sida Hargeysa iyo Garowe waxay bilaabeen inay warqado ay u qaybiyaan dadka ay dhahaan warqadahan qaata instruction waxa ku qoran presentation sida gacmaha loo dhaqdo iyo inaan afka la taawanin qofka markuu handhisayo kale inuu gacanta oo saan u qoloociyo oo ku handhiso baraarujintaas ay bilaabeen arrintaas waa kaga mahad celinaa dhalinyarada oo ku nool magaalada Muqdisho waxaa rajeynaa inay bilaabaan in isbaraarujiyaan sida suuqyada waaweyn sida Xamarweyne iyo suuqa Bakaaro oo kale zaxmad badan imaanayo cudurka waxa laga yaabaa meesha soo galo inay dhibaato far badan ka imaado marka dhalinyarada waxa leeyahay ka qayb qaata insha Allah waa tahay aad baad u mahadsan tahay Dr. Cabdullaahi dad badan oo Soomaaliyeed ba waxaad moodaa amar badan oo dawladdu ay soo rogtay iyo maamulka gobolka Banaadir digreetadii u dambeysay ee ku aadanayd ba in gabi ahaan aan la tagi karin goobaha damaashadka ay dadka reer Muqdisho u tagaan marka dadka qaar waxa moodaa wali in arrintaasi ay ka dhiga adag yihiin marka qaar waxay ku sheegayaan inaan aaminsanayn in cudurkan Soomaaliya uusan laftirkiisa viruskan laftirkiisa Soomaaliya uusan ku noolaan karin qaar ba ku sheegaya marka la kulanto marka bal arrintaas ka hor runtii waa arrin aad iyo aad murug u leh waxaan arkay fiidiyoyaal badan oo dad Soomaaliyeed ay ka hadlayaan oo ay leeyihiin Soomaaliya coronavirus ma soo gaarayo dadka Soomaalida ah kuma dhacayo runtii waxaan leeyahay arrintaas waa arrin khatar ah oo keeni karto in la sahalsado halista cudurka coronavirus waxaa sahalsaday dalka Mareykanka oo kale oo aan qaadanin tallaabooyinkii muhiimka ahaa maantana Mareykanka waxa uu hogaaminayaa dalka koowaad ee ugu saameynta badan coronavirus waxaa loo baahan yahay in aan qaadano talooyinka wasaaradda caafimaadka iyo khuburada caafimaadka ay soo jeedinayaan taas oo keeni karto in maaragtay cudurkan faafitaankiisa iyo wixiisa uu yaraado waxaan u mahad celinayaa dawladda federaalka oo qaadatay tallaabo muhiim ah oo joojisay gabi ahaan isu socodka marka waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed fadlan gurihiina jooga qaata talooyinka ay soo jeedinayaan khuburada iyo wasaaradda caafimaadka cudurkan waa cudur halis ah waa cudur dilaa ah ma ahan cudur maartay kaftan ciyaar ah qofka muslimka ah iyo qofka gaalkana labada waa uu ku dhacaya ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu leeyahay wa khuduu hidrakum yani digtoonidiina qaata diinta islaamka waxa ilaalisay nafta iyo maalka iyo cirdiga sidaas daraadeed waxa loo baahan yahay inaan nafteena ilaalino aan qaadano tallaabooyinka wasaaradda iyo khubarada caafimaadka in farayaan aad baad u mahadsan tahay Dr. Xasan su'aashii aan weydiiyey Dr. Cabdullaahi mid lamid baan ku weydiinayaa wali qaar ba ka dhiga adeegaya oo waxay leeyihiin Soomaaliya heer kulkeedu aad buu u sareeyaa marka mana ku noolaan kara viruskan marka bal arrintaasi marka haye horta dadka waxay fahmi la yihiin macnaha kelimada viruska kuma noolaan karo yani external of the cell viruska wuxuu ku dhex noolaa inside the cells wuxuu ku noolaadaa laba source jirka bini'aadanka iyo xayawaanada ku dhex noolaadaa marka aniga hadduu jirkayga oo virus ku dhex jiro oo maanta laamiga dhex socdo ma la dhihi karaa qofkaas viruska jirkiisa ku dhex jira laamiga ma dhex socon karo kuleel waa meesha ku dhex noolaan karo ma la dhihi karo laakiin gudbinta ay yaraanayso yani hadda maanta aniga aan handishow ay yiraahdo bi'aadan ee kulusha inay gudubto ee faafto temperaturekaas waa adag way ku adag tahay laakiin qofka jirkiisa qabo viruska wuu ku dhex noolaan karaa wuu ku dhex socon karaa marka cudurkan viruska wuxuu ku dhacaa human body ku dhacaa iyo animals ku dhacaa laakiin meelaha oo dadka bini'aadanka ay isticmaalaan oo kale inuu kor istaago kale cudurkaas saacada ma sii saarnaa karo marka Soomaaliya sida hadda Sacuudiga aan ka warhayno xilliga Talyaaniga uu ku bilowday cudur ku bilowday ilaa ay hadda waa adagta inuu ku faafo because Sacuudiga waa naqaana wadan aad u kulul waay sida Soomaaliya kale marka Soomaaliya hadda cudurka doo soo galo waxa saaciidaya temperature-kan waa saacida oo faafitaankan waa adkaana laakiin hadduu soo galo dad wuu saameeyna ummadan waa gumaada marka waxaan dhihi lahaa dadka yaan la dhaliilsanin dawladda iyo quwadaha weynaay oo sida America ay kamid tahay hadda waxay sii marweyn news u dambeeyay adiga 200 kun oo qofood ku dhaw yihiin cudurkan oo saameeyay dhimashadan waxay sii marweyn ilaa 5 kun oo qof ay sii marweyn marka way dhaliilsadeen way ka gaabiyeen inay cudurkan
ay u istaagaan inay ka hortagaan marka aniga waxaan ugu baaqaya dhalinyarada Soomaaliyeed inay u istaagaan inay wacyigelin bilaabaan haddii cudurka magaalada oo soo galo saynis yahanada weli ma wacyigishno organizationno badan waa sameeyeen waxaan aasaasnay Somali Society Microbiology oo aan ku mideynayna dhammaan saynis yahanada Soomaaliyeed saynis yahanada Soomaaliyeed uma baraarugsanay inay u istaagaan ka hortaga caabuqan marka waxaan ka codsanaynaa maadaama aanan weli u diyaar gareysnayn dadkii inay u baraarugaan ee iska ilaaliyaan problemkan oo adduunka ku sii bahayo haddii mar Soomaaliya oo magaalooyinkeeda gudaha soo galo waa adagta in la celiyo ilaa dawladihii waaweyn ay iska xakameeyaan aad baad mahadsan tahay waa tahay Dr. Cabdullaahi marka loo yimaado dhanka dhaqaalaha oo aad moodo in cudurkan uu aad waxa weeye dhaqaalihii dhulka ula galay wadamo badan Soomaaliya dulimaadadii caalamiga ahaa iyo kuwii localka ahaa ee gudaha dalka soo gudbay intaba waa la xiray arrintaasi maxay saameyn ah oo ay ku yeelan kartaa haddii ay suurtagal noqoto wadamada dariska maadaama cudurkan laga helay uu faafitaan sameynayo haddii Soomaaliya marka uu yimaado ilaahay ma keenee xayiraadahan laftirkeedu dhanka dawooyinka oo kale inkastoo dawladdu ay sheegtay diyaaradaha xamuulka inay fasaxday laakiin haddana dawladda Soomaaliya qalab ma haysato oo looga hortagi karo ama waxa weeye loogu talagalay arrimahaas oo kale marka maxaad is leedahay maadaama ganacsigii iyo dhaqaalihii uu hoos u dhacay ilaahay horta nooma keeno waxaan ka mangelaynaa ilaahay cudurkan waxaa awood u waayay wadamo anaga naga awood badan oo naga dhaqaalo badan oo technology ahaan naga sareeya ayaa awood u waayay runtii corona waxa uu cadeeyay wajiyaal fara badan waxa uu cadeeyay wadamo badan oo isbidaya awood inaysan awood lahayn awoodda keliyana inay tahay awood ilaahay sidaas daraadeed corona waxa dhanka kale uu noqday fursad ah adduunkii waagi hore waxaa lagu tartamayay hubka iyo maaragtay teknolojiyadda waxaa la ilaaway bini'aadamnimadii iyo caafimaadkii iyo waxyaabihii asaasiyaadka u baahnaa bini'aadamka waxaa yaraaday cilmi baarista ciyaaryahanka oo kale waxa uu qaataa isbuuci intaas oo milyan oo euro ayuu qaataa halka saynisyahanka iyo qofka cilmiga caafimaadka baarayna maaragtay lacag $100,000 sanadkii uu qaato taas marka waxay keentay in caafimaadkii horta laga wareego fursad waxa ay noo tahay marka corona in hadda kadib corona aan u diyaar garowno oo ay imaan doonaan cudurro corona ka daran sidoo kale corona waxa uu cadeeyay in qofka waagi hore marka uu xanuunsado ama cudur uu ku dhaco dibadda ayuu aaday jiray lacag ayuu lahaa uu soo daaweyn jiray laakiin corona lacag kastoo aad leedahay meesha uu kugu dhaco lagama qaadi karo daawona ma laha taas marka waxay noo cadeynaysaa in ganacsatada Soomaaliyeed iyo dadka ilaahay lacagta uu siiyay in lacagtooda wadankooda maal gashtaan in saynisyahanada la maalgeliyo in maaragtay aan lahaano wax soo saar sidoo kale aan lahaano qalab technology casri oo lagu baari karo dhanka kale Soomaaliya hadduu yimaado ilaahay ma keeno runtii waa arrin aad iyo aad fajac u ah waxaa la xiri doonaa dhammaan isku socodka dawladdu waxay soo rogi doontaa bandow taas waxay keeni doontaa dad badan oo israaqadooda alyoomkooda dhacsan jiray inay waayaan meeshaas waxaa ka imaan karto majaaco iyo maaragtay abaar daran oo dadka baabi'isa ayaa imaan karto sidaas daraadeed dawladda iyo dadka Soomaaliyeed waa inay ku baraarugaan wax soo saarka gudaha ah Mareykanka oo kale waxa uu haystaa cunno ku filan dhowr sano reer Yurub oo kale waxay haystaan cunno ku filan dhowr sano laakiin Soomaali haddii aan nahay ma haysano cunno maaragtay noo keedsan oo dhowr sano nagu filnaanayso caalamka waxa la weydiisan lahaana waxaa ka jirta dhibaato taas marka waxay keenaysaa ilaahay cudurka marka uu naga qaado inaan u diyaar garowno wax soo saar inaan lahaano keed in aan ku talagalno cudurro bari ka waaweyn coronavirus inay imaan karaan marka waxaan leeyahay ilaahay nooma keenin laakiin hadduu yimaado waxaa dhici doona dhaqaale burbur dawladda canshuurta iyo waxyaabihii soo geli jiray waddanka ma soo gelayaan markaas kabkii dawladda ay heli jirto oo kaleeto adduunka dhanaa musiibooyin ka jiraan taas marka waxay keeni doontaa dhaqaale burbur inuu yimaado inay baahi dhacdo in maaragtay dad badan ay gaajo u dhamaadaan waa tahay aad baad u mahadsan tahay Dr. Xasan qaaradda Afrika markaan u imaano cudurkan waa uu soo gaaray wadamo badan buu ku faafay waliba saameyn buu ku yeeshay Soomaaliya laftirkeedu aad ogtahay dhowrkiis bay dawladdu sheegtay haddana sida marka la fiiriyo America ama la fiiriyo wadamadan Europe ama Asia laftirkeedu sida uu ugu faafay uma faafin marka arrintaas dad badan waxay isweydiinayaan waxaa talo cudurkan inuu faafo oo ku faafo Europe ama America
ama Africa cawaamila saacido waxyaabaha saacida waxaa kamid ah oo kale temperature-ka oo kale waa saacidee waxaa kaloo saacida waxyaabaha la isticmaalo dadka oo reer galbeedka waxay aad isticmaalaan waa taqaaniin khamrada dadka khamrada isticmaala aad u saameysaa waxay kaloo saameysaa dadka age-kooda ka weyn 50 sano way saameysaa sida hadda aan news ku maqalnay waxaa geeriyooday ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde marka dadka ka weyn 50 sano cudurka jirkooda ma taxamuli kara awood ay ku taxamulaan immunity ma laha Afrika markii la imaado reer galbeedka waxaa ku badan waxyaabaha maandooriyaha dadka isticmaal waxyaabaha maandooriyaha dadka Ilaahay ka furtay dadka isticmaal waxyaabaha Ilaahay xaaraantinimeeyay wax walba Ilaahay xaaraantinimeeyay hada isticmaashid problema kaaga imaana cuquubada kaaga imaanayso hadda sourciga sababay cudurkan corona waxaa sababo oo gudbi transmissionkiisa kibiliga waay nooc shimbirada kamid ah shimbirtaas ay isticmaalaan ay cunaan waxyaabo badan oo waxaa jira marka oo Ilaahay naga xaaraantinimeeyay iyaga isticmaalaan sida qanziirka kala kamid ah qanziirkaas oo kale haday cunaan cudur fara badan oo Ilaahay naga xaaraantinimeeyay wuxuu nagu xaaraantinimeeyay cudur fara badan oo noo sababay jiro cudurkaana kamid ah corona kamid ah waxaa kaloo kamid ah cudur kale sida tina solium wax la kamid ah marka cudur fara badan jiro waxyaabaha ay isticmaalaan waxaa kamid ah sida jiirka kale way qaataan anaga jiirka ma cunno Ilaahay naga xaaraantinimeeyay waxyaabahaas ay iga cunaan sida eeygo kale way cunaan hadda wadamo Jeena waxaa la sheegaa Wuhan in oo meelihii eeyga lagu gaday wixii oo dib loo furay maadaama cudurka oo ka yaraaday waxyaabahaas iga ay quudanayaan dhamaantood waxaa laga helaa virus laga wada helaa eeyga wuxuu sababa virus la dhahaa rabies oo sababa jiirka wuxuu sababa virus la dhahaa hanta virus oo sababa waxyaabahan aniga oo Ilaahay naga xaaraantinimeeyay maadaama iska dhaafnay saas darteed oo Ilaahay noogu gurmaday Afrika badana majority waxay u badan yihiin dad aanan isticmaalin waxyaabahaas qaar waxaan u saamixaynin dhaqan ahaan iyo xadaarad ahaan aan u saamixaynin وقت أديك أنت دكتور عبد الله وجودبين هانت فارس بتكلم واجسي دوانا وحجري ورا الشيء إن كيسس لحريرة عابو قاسي لجاه لي جينها مركا يدو لفتر كذا بالكور هانت فارس وكترسيه هاي إسلا فمل إسكلا ترسيه عذر كان لديه كورونا فارس كمركا لقايبي وحلا قايبيا DNA فارس RNA فارس RNA family iskala tirsan corona virus iyo hanta virus source oo gudbayna kala duwan hanta virus waxa gudbiyo wax loo yaqaano jiirka dooliga oo dadka ay isticmaalaan waa taqaanin geneska waxyaabo fara badan ay cunaan marka cudurka wuxuu kaga yimaada jiirkaas marka wax walbo dhintay Ilaahay wuxuu noo sheegay wax walbo dhintay oo meyd ay loo dhawaanin hadoo dhintay u dhawaadaan way cunaan hadii oo xoolo dhintay baqtigiis way cunaan waxyaabaha dhintay aad u isticmaalaan wax walbo dhintay oo maalmo meel yaalay Ilaahay jirkiisa wuxuu ka soo saaraa waxyaabo cudurro fara badan ka soo saara looma dhawaada lama taabto iyagu waxay sameeyeen fridge ku celiyaan dhaqaan formalin wax la isticmaalaan ee nadiifiyaan dan waxay u isticmaalaan in dib u soo warshadiyaan ay isticmaalaan marka cudurka hanta virus wuxuu ka tirsan yahay groupkaas RNA virus uu ka tirsan yahay asigana wuxuu ku dhacay wadankan Jeena magaalo Wuhan ka tirsan laga soo sheegay nin bas saarna 30 qofood bas saarna loo karantiilay mid kamid ah laga helay qofka saarna baska laga helay cudurka gudbintiisa marka waa adag tahay cudurku wuxuu ku gudbaa kasin qof inuu qof kale afka la galo oo kasin sameeyo iyo stool qofkii imaado kale inuu qofka taabto ama urine qofkii imaado kale inuu qofka taabto cudurkan gudbintiisana aad ay u adag tahay oo spreadkiisana waa yar yahay wuxuu ka bilaabday magaaladaas ilaa ay hadda case dam wax sheegan ma maqlin meeshuna ku istaagay Ilaahay hanagu joojiyo waa gartay aad baad maasan tahay Dr. Cabdullaahi qaybaha waxbarashada ee dalka marka loo yimaado waxaad moodaa dhalinyarada Soomaaliyeed inay meelaha qaar u badan yihiin marka laga sheekeynayo dhanka maamulka oo arday ka soo baxaysa aad ay jaamacaduhu u soo saaraan iyo qaybihii kale oo caafimaadka dhanka sayniska oo adinku labadiinaba wax ka barateen ma ku baraarugsan yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed maya runtii dhalinyarada Soomaaliyeed kuma baraarugsana sayniskana way ka ordaan maadaama xoogaa uu yara adag yahay uuna u baahan yahay waqti badan iyo raadin badan u baahan yahay anigoo ka faa'iideysanaya barnaamijkan waxaan ugu baaqi lahaa jaamacadaha Soomaaliyeed inay xoog saaraan kuliyadaha sayniska inta badan laguma dhigo sayniska sida microbiology oo kale waa maaddo aad iyo aad bulshadu u anfacayso waa maaddo qaabilsan ilmo aragtada raadinteeda iyo xal u helideeda saynisyahanada Soomaaliyeed aad ay u yar yihiin waxaana sababay thaqaafada Soomaaliyeed
oo u badan in dadka ay bartaan dhaqaalaha ama maadooyinka kale sida caafimaadka guud oo kale ayaga u arka haddii cilmigaas soo bartaan inay si degdeg ay shaqo ku helayaan laakiin waxa u sheegaynaa in sayniska uu ka shaqo badan yahay haddii maaragtay qofku uu dhaqaale raadinayo haddii magac uu raadinayno inuu sayniska weyn yahay waayo saynisyahanka waa ninka baara cudurrada isla markaasna ogaado calaamadahooda isla markaasna usoo saara daawadii ku habbooneed ee maaragtay loogu hortegi lahaa cudurkaas marka waxaan ku baraarujinayaa jaamacadaha inay bilaabaan dhigidda maadooyinka sayniska ah sida maaragtay microbiology-ga biotechnology-ga iyo dhammaan cilmigan maaragtay la xiriiro waa gartay doctor xasan baaqaaga ugu dambeeyo iyo sidoo kale dhalinyarada Soomaaliyeed waxa kaga aadan dhanka sayniska يعني dhalinyarada waxa ugu baaqaya maadaama cudurkan cabsi badan laga qabo inaan u istaagno si wada jir ah inaan ka hortagno cudurkan coronavirus wasaaradda caafimaadkan waxa ka codsanaa dhalinyarada fara badan aqoon-yahanada scientista in isku keento يعني u sameeyso barnaamij oo lagu baraarujinayo dhiirigelin dadweyne fara badan hadda laga xarimay inay hoteelada iyo meelaha isku imaanayaan laga joojiyo dadkina weli waa socdaan baraarujintii waxa u maleysaa in wixii oo baraarujin la sameeyo dhan ee gaabis muujinayaan marka dawladda waxaan ka codsanaynaa inay sameyso baraarujin intaas ka sii badan xaafad walba aqoon-yahana ku nool aqoon-yahan walba irda ku xiga oo wacyigelinta ka bilaabo waxa isleeyahay wacyigelinta inay ummad dhan wada gaarayso laakiin haddii oo idaacad le nin ka hadlo oo yiraahdo war wacyigelin hala sameeyo guriga kugu dhigan ninka joogan oo shaqadiisa iska sii wato markaad idaacadda aadamisid waxaa leedahay waxay ka hadlayaan islaamka kuma dhaco dadkan kuma dhaco waxyaabo fara badan ay tirinayaan dadkii marka waxaan ka codsanayaa inay baraarujintii saynisyahan walba xaafadda uu ku nool yahay oo ka bilaabay insha Allah waana mahadsantiin aad baad mahadsan tahay guntii iyo gunaanadkii gabagabadii barnaamijkii dhalinyarada ee Baraarug ayaynu isla soo gaarnay toddobaadkan waxaanu kaga hadlaynay caabuqa COVID-19 ee dunida qalqalka weyn ku haya waxaa stuudiyaha xarunta dhexe ee telefishinka Somali Cable igula sugnaa Dr. Cabdullaahi Daahir Duqow iyo sidoo kale Dr. Xasan Maxamed Eenow oo labadaba kamid ah ururka saynisyahanada Soomaaliyeed inagoo isku duuban bahda Somali Cable waa farsamadii Cabdiraxiin Xuseen Caylaawe iyo kaamiradii Ismaaciil Maxamed Muuse Orayd anigoo Maxamed Cismaan Daahiya ayaa idinla socodsiinayay barnaamijka soo saaray tan iyo barnaamijkan barnaamij lacayn ah nabadgelyo